degiyo nabada shabab way la diriiraan dowladnimada iyo nolosha shabab way la diriiraan dadku inuu batiyo faraxa shabab way la diriiraan Soomaaliyeed waxay idinku yimaadeen inay idin dhiirigeliyaan inay idin garab istaagaan inay ogaadaan xaaladdiina inay idinku kaalmeeyaan jihaadka aad ugu jirtaan inaad sharafkiina iyo naftiina iyo jiritaankiina aad difaacataan dadku inuu batiyo faraxa shabab way la diriiraan muddooyinkii dambe marka culayska badan ay dareemeen waxay bilaabeen in ay qabaa'ilka Soomaaliyeed si dadban isugu dhuftaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee qabaa'ilka ee dagaalamaya halkan fariin uga dirno oo ah in badan oo idin kamid ah idinkoon ogeyn ayaa al-shabaab idin isticmaalayaan waxaan haynaa oo cadeemaheeda la hayaa oo qaarkood hay'adaha sharcigu ay daba socdaan iyo hay'adaha ammaanku dad al-shabaab ay lacag ku siiyeen inay qabaa'il isku dhuftaan oo qaarkood shaqadaas fuliyay dadku inuu batiyo faraxa shabab way la diriiraan hal oday dhaqan Soomaaliyeed oo la yaqaan oo oday hebel leeyahay oo al-shabaab difaaca ma jiro hal ganacsado Soomaaliyeed oo al-shabaab difaaca ma jiro siyaasi Soomaaliyeed oo al-shabaab difaaca ma jiro meel ceebeed ay noqdeen meel ceebeed oo laga cararo oo foolxuma oo ihaana oo qofka lagu sheegaahay yani qofka aad kula kaftantahay niyo al-shabaab ama xiriir la leedahay oo ceeb iyo dambi dareemayay noqdeen dadku inuu batiyo faraxa shabab way la diriiraan war meeshaas nolol kuma harin beentiina waa dhamaatay intay goor tahay isaga soo taga oo yaan leedin ku qaban oo ha sugunina maanta kacdoonka socdaa markuu tuuladaad joogto ka kaco oo ama lagugu qabto ama lagugu dilo ha sugin inta oda dhaqameedkaagu fadwoodo oo magacaaga sheego oo asagu ku dilo gabadha kula dhalatay iyo wiil kula dhasho ku dilo ka bax safka al-shabaab xisaab xirantay waaye dadkaaga u noqo ciidamada dalku duguriya habeen doona kubaan shacabku dignin taariikhay maran midkii dagan la haraa waa nasiib maanta inaan isla helnay dawlad ajandaheeda koowaad uu yahay nimankaas inay tirtirto nafta iyo nolosha inoo diiday iyo dadkii Soomaaliyeed oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu waafajiyay hadda inay istaagaan oo ay yiraahdaan al-shabaab iyo khawaarij iyo argagixiso maya wadanka si fiican baa ula socotaan mid kamida furimahaas ayaan tegin waxaan rabaa inaan idin sheego waxay tahay haddii wax badan la dhihi jiray wax la soo abaabulay iyo wax la soo maleegay iyo wax laga soo shaqeeyay iyo wax siyaasadaysan ayaa socda waxaan soo aragnay waxa weeye oday 80 jira oo baadiyo ku gaboobay oo aan smartphone si loo isticmaalo aqoon oo idaacadii u yaqaanay oo uu dhageysan jiray hadda aanay adduunyada ka shaqeynin oo waxa socda aan la soconin oo dadka Soomaaliya hogaamiya aan garanaynin oo shabaab meeshuu ku noolaa intay ugu tageen oo xoolihii uu haystay ka dhaceen oo beertii uu tacbanaya ka dhaceen oo ceelkii uu biyaha ka cabay ka gubeen oo taleefanka yarka ah ee niclaha ee uu sito lacagta ugu jirta si uunan u isticmaalin shirkadii isgaarsiinta ee ugu dhaweed ay ka zuuliyeen oo geedkii uu harsanayay ee quraca ah ay ka gubeen sarka ka gooyeen waxaan idin sheegay wax dukumeenti oo duuban waay qiyaas ma ah geedkii gooyeen ceelkii ay gubeen suuqii xireen beertii xireen xoolihii bay dhaceen 80 jirka intaas la kulmay oo cimrigiisu meeshaas joog oo meeshii uu ku noolaa ay ugu tageen oo waxa soo dhib ay u geysteen oo go'aansaday inuu qori qaato iska dhiciyo way waxaan soo aragnay al-shabaab dadku inuu batiyo faraxa shabab way la diriiraan muddo 4 bilood hadda aan ka badnayn
ayuu dagaalkaasi bilaabay haddii aan ku bilaabno dagaalka qoriga ah ama xabadda ah ee al-shabaab lagula jiro 4 bilood ka hor meesha ay ka joogeen gobolka Hiiraan iyo meesha ay maanta ka joogaan qof kasta Soomaaliyeed ha cabiro waxay joogeen xadka Itoobiya intay dhaafeen gobolka maantana xabadii ugu dambeysay daraad meesha meedkooda ay uga carareen waa xadka gobolka Shabeellaha Dhexe macnaheedu waxay tahay gobolka Hiiraan 90% in dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ka guuleysteen inay khawaarijta ka xoreeyaan dadku inuu batiyo faraaca shabab way la diriiraan وعدو أن عدنا الريبينين وعدو الدين تهالسقوا مساجد أي فارجيان ودك كور استاجين إن كل عبادستان ويكتو كدان دوسية القرآن كأي نار عن باريس كدجان دتك علامات الإسلام بكتة أي تارك كدجان أو دنا عنا أيوب ودلان دنا عنا سورة حماين أي دين تسورة حمايين أي كانت إن دتك أي نولان ويان أو يتقنوا ويان وحكوا كم مدن وأيتها إن لا تدري أو للدلاهيتها lagu dilo dabal caayay waran ila shabab ka dila dabar gooyo waa cudur duumay furuqeen